الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسو دوادا تلفزيون كافكا سوماليغا كو هادلي دالكا فيلان سو من سومالي تابع برنامجka aanu idin haynana waxa kamid ah isla markaana waa inta aynu ku guda jirno ka bogan doontaan warkii oo alaaba aan ku daafurno barnaamijkeena warbixin la xiriirta doorashooyinka tan qabanqaabadoodu ay socotay baarlamaanka Yurub oo aan iyadana idin hayno iyo waliba waraysi aanu la yeelanay doorashadaas ku saabsan ra'iisul wasaaraha dalkan Finland Jyrki Katainen. waxa kale oo barnaamijkeena aan caawa idinku soo gudbin doonaa daawadayaal shir ballaaran oo sanadla oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadaha Somaliland ee Yurub oo sanadkan ka dhacay magaalada Helsinki. sidoo kale waxaan idinaynaa warbixin la xiriirta shirkaas oo aanu filayno in aad ka bogan doontaan. haatana ku soo dhawaada warkii oo aan anigu idiin soo gudbiyo. maxadada tareenka ee ka haysan Yami oo magaceeda la bedelayo shil diyaaradeed oo deegaanka Yami yartii ka dhacay oo ay ku geeriyoodeen 8 qofood. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan daawadayaal haatan ku soo dhawaada. shil diyaaradeed oo ay ku geeriyoodeen 8 qofood ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Yami yartii ee dalkan Finland. 3 qofood ayaa iyaguna ka badbaaday shilkaas kadib markii ay kaga duuleen dalaayad. shilkan diyaaradeed ayaa waxyaabihii sababay ayaan ilaa iyo haatan sida ay baarayaashu sheegayaan caddayn, waxaana haatan lagu guda jiraa baaritaan dhinac walba leh oo la xiriira sababtii diyaaradaas ay u soo dhacday. diyaaradan ayaa waxa ay ahayd diyaarad qaada 12 qofood. 12kii ay saarnayna 8 kamid ah waa ay geeriyoodeen, 3 kamidna waxay kaga digteen ama kaga duuleen dalaayad. diyaaradan ayaa waxa isticmaala dadka dalaayadaha ku booda oo dalaayad ku boodistu ay u tahay waayad. maxadada tareenka ee ka haysan Yami ayaa waxa magaalada Helsinki maamulkeedu ay go'aan ku gaareen in magaca laga bedelo isla markaana loo bixiyo jaamacadda Helsinki. guddoonka dadka maamula magaalada Helsinki ayaa waxa ay cod qaab dimuqraadiyad leh loo qaaday ku gaareen isla markaana ku go'aamiyeen in magaca ka haysan Yami maxadadaas laga bedelo isla markaana loo bixiyo jaamacadda Helsinki. soo jeedinta arrintan ayaa waxa markeedii hore ay ka timid maamulka jaamacadda magaalada Helsinki. dad badan ayaa qaba in isbedelkan uu xoogaa ku saameyn ku yeelan doono qaab socodka gaadiidka, balse dadka arrimahan u dhundolole waxa ay sheegayaan in maadaama jaamacadda Helsinki ay tahay jaamacad caalami ah ay mudan tahay in magacaas la siiyo ama ay xambaarto. bishii Maarso ee sanadkan aynu ku guda jirno 2014 waxaa dalkan Finland kacay shirkadihii abid ugu badnaa. ku dhawaad 346 shirkadood ayaa waxa ay dalbadeen isla markaana soo gudbiyeen codsiga ay shirkaduhu marka ay itaal beelaan isla markaana isu diyaariyaan inay kacaan ay dirsadaan. waxaa sidoo kale la sheegayaa in dhibaatooyin fara badan oo dhinaca dhaqaalaha shirkadaha yaryar ka soo gaaray dartood laga yaabo in bilaha soo socdana shirkada intaa ka badan ay dalban doonaan kicitaanka. waxaa dhowaan ku dhawaaqay in uu xilka ra'iisul wasaarenimada iyo waliba guddoomiyenimada xisbiga Kokoomus ka degayo ra'iisul wasaaraha haatan talada dalkan Finland haya Jyrki Katainen. waxaana iska soo dabadhacayay dadka isu soo diyaarinaya isla markaana u tartami doona jagada guddoomiyenimada. waxaana ugu dambeeyay wasiirka arrimaha Yurub iyo ganacsiga dibadda Alexander Stubb oo ku dhawaaqay in uu u sharaxan yahay guddoomiyenimada xisbiga Kokoomus. taasina waxa ay ka dhigan tahay xaaladda haatan jirta aawadeed in qofkii ku guuleysta ama haddii Alexander Stubb uu ku guuleysto guddoomiyenimada xisbiga Kokoomus uu noqon doono ra'iisul wasaaraha dalkan. Jan Fabian Fuoriya oo isna wasiir ah isla markaana ka tirsan xisbiga Kokoomus ayaa horey ugu dhawaaqay inuu tartamayo xilka guddoomiyenimada si uu ugu gaaro haddii uu ku guuleysto ra'iisul wasaaraha jagadiisa. daawadayaal warkani waa naga intaas. waa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan daawadayaal shir ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen dallad ay ku midaysan yihiin jaaliyadaha Somaliland ee Yurub. shirkaas oo sanadla ah ayaa waxa uu sanadkan ka dhacay magaalada Helsinki ee dalkan Finland. shirkaas waxaa ka soo qayb galay madax sarsare oo ka tirsan dalkan Finland. sidoo kale waxaa goobjoog ka ah isla markaana si gooniya loogu casuumay
قدوميها برلمانكا somalilan cabdiraxmaan ciro professor axmed ismaaciil samatar oo isna ka tirsan aqoon-yahaniinta somalilan waxaa kaloo isna goobjoog ka ahaa gudoomiyaha xisbiga ucid faysal cali waraabe shirkaas iyo weliba qaabkii uu dhacayna aan idin kala baxo ee kusoo dhawaada aniga magacaygu waa cabdiraxmaan yaasiin waxaan ahay gudoomiyaha dalada guud ee jaaliyadaha Somaliland iyo Europe dalada markaan leeyahay waxa uu simaada dhamaan jaaliyadaha Somaliland ee ka dhisan Europe ugu yaraan waxa ku sijilin daladan ilaa 12 wadan oo Europe ah ilaa iyo dhowr iyo 50 shakhsiyaad oo wadamada kala nooca aqoon-yahana aqoon ta guud oo dhan iyo xirfado badan kala wada leh ujeedada ururkan loo asaasayna tawaraysa waxay tahay sidii dadka Somaliland ee dibadda jooga ay horta bal meel isku wada iman lahaayeen markay taa la helana in wadankii wixii laga qaban karayo laga qabto sidoo ogtahay wax badan bay jaaladaha Somaliland ay ka qabtaan wadankii iyaga laantood wadankuna de mulismen waana waajibaadkooda ma wax ay ku tabarucayaan wax iyaga mas'uuliyadooda noqotay marka san maanta halkan aanu joogno mataan waxa weeyaan waa kalfadhigii kuwii tobnaad ee daladan shirarka noocan waxay dhacaan sanad walba waqtigan oo kale waxayna ka dhacaan magaalooyin Europe kamida kala hore waxa ka dhacday Brussels oo adogeyd adiga naga la soo qayb galay wadaraadkii weynaa ee ku muujinaynay qadiyadda Somaliland maanta halkan aanu joognaa Helsinki waxaan doonay sidoo kale in halkan uga mahadnaqo gudoomiyaha jaaliyadda iyo dhammaan jaaliyadda Somaliland ee wadanka Finland oo noo suurta geliyay inaan ugu marti qaadaan kulankan waan uga mahadnaqayaa gudoomiyaha Xasan Cali iyo dhammaan jaaliyadda sida sharafta leh sida qiimaha leh sida xoogooda waqtigooda ugu haleeyeen uu qabsoomi kari lahaa shirkan saako noo bilaabmay sida socotid meel fiican buu marayaa waxyaalo badan baa laga hadlay san hore kugu sheegayna waxyaalaha laga hadlay waxa kamid ah sidii bal xaaladda Somaliland hadday tahay siyaasadda dhaqaalaha dhaqanka dadka in la iska wareysto la iska weydiiyo wax la falanqeeyo su'aal badan la isweydiiyo jawaabtoodana la keeno markaas saas baan maaragtay in shirkaas uu noogu socdaa waxaan rajeynayaa inuu socon doono inaa Britole ilaa madda marti sharafeed aad fara badan baa ka hadashay hadday tahay aqoonyahanka Somaliland hadday tahay gudoomiyaasha hadday tahay wadankan martidaanu nahay xukuumaddiisa society hay'adiisa aan dawliga ahayn intuba si sharaf leh ay uga soo qaybgaleen shirkan saas fiican oo noogu socdaa waana mahadsantahay haddii aan ka warramo macnihii anigu sida uu gudoomiyaha dalada SSC sheegay Cabdiraxmaan Yaasiin horta ilaahay mahadi weeye dad badan ayaa yimid ka kala yimid 12 dal ee Europe waxa kale oo ka soo qayb galay meeshan kulankan SSC ee 12 sanadkiisii 12 waxa ka soo qayb galay shirkan hay'adaha arrimaha wasaaradaha kala duwan ee dalka Finland wasaaradda arrimaha dibadda qaybta baarlamaanka Europe iyo localka golaha deegaanada oo kala duwan Turku caasimadda labaad iyo Helsinki iyo Fanta caasimadda la yiraahdo waxa kale oo ka soo qayb galay Finnish International NGOs hay'adaha caalamiga ah ee maxalliga ee Finland kuwaas oo wax ka qabta Somaliland qaarkoodna ay xiiseynayaan waxa maan farxad weyn oo ah ka jaaliyadahan inay ka soo qayb gashay Finland oo ah urur cusub oo ku qeexaya journal library-yada ama maktabyada taas oo xiiseynaysa in aan ugu bandhignay maktabka cusub ee laga soo sameeyay Somaliland oo ay diyaar u tahay inaanu tagno sanadkan bisha 8 hadii aan leeyno dhammaan waxaan halkan uga mahadcelinay dhammaan jaaliyadaha Somaliland ee Ingiriiska iyo ka wada yimid 12 dal Scandinavian-ka Holland Germany France Belgium iyo intii kale aan ilaabayba iyo Italy waxaan aad uga mahadcelinayaa sida sharafta leh uga soo qayb galeen waana ilaahay mahadi ilaahayna waa noo hirgeliyay alxamdulillah baan leenahay bismillaahir rahmaanir rahiim ani Eid Xasan oo Musaale iraah waxaan ka yimid London in waxaan ahay Somaliland Society Europe Treasurer iyo in West London Somaliland Community Founder iyo at the same time Director no aan ka ahay in halkan maanta Helsinki baan joogaa
caasimadda dalka Finland waxaan uga soo qayb galay waxaan u yimid inaan ka soo qayb galo shirkii sanadlaha ahaayee dalladda Somaliland Society Europe ay sanad walba qabato marka sanadkan Helsinki buu ka dhacayay shirku waa ujeedadiisu waa maxay ahayd qadiyadda Somaliland baa lagu falanqeeyaa kolba wixii challengeski iyo achievementskii jira oo laga wada doodaa si ay u abuurmato maxaa la yidhaahayay ujeedadiisuna ay tahay sidii kolba dalka Somaliland guud ahaan horumarkiisa looga shaqayn lahaa hadday tahay dhinac bulsho dhinac dhaqaale iyo dhinac siyaasadeedba marka shirka baan maanta u yimid maanta jimcaha ayuu bilowmay conference-kii internationalka ahaa bari insha Allah Somaliland Society Europe jaaliyadaha ka tirsan iyo ururada ka tirsan ayaa isu iman doona warbixinooyin ururadooda ka dhiibi doona iyo mashaariicday wadaan isla markaana waxa la geli doonaa maxaa la yidhaahayay doorashadii Somaliland Society Europe guddideeda oo labadii sanaba mar la doorto marka waxaan rajaynayaa inuu insha Allah si fiican noogu dhamaado bari oo dadka reer Somaliland ka soo qayb galay oo ka kala yimid Ingiriiska Sweden Faransiiska Holland Italy maxaa la yidhaahayay Denmark ayaa laga wada yimid iyo Germany marka waxaan rajaynayaa inuu qof walba si nabad qabta uu gurigiisa ugu noqdo uu bari si fiican noogu dhamaado insha Allah shirkaas bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Axmed Cabdiraxmaan waxaan ahay jaaliyadda reer Finland runtii waa markii ugu horeysay aan ka qayb galo Somaliland Society Europe meeting-kan runtii aad buu qurux badnaa runtii in badanna waan suganay waxa weeyaan waa fursad qaali oo suganay bay ahayd inaan la kulano dad runtii aad u qiimo badan oo ka mid yahay Professor Axmed Ismaaciil Samatar runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ma garanaysaa halka dad oo ay ka mid yihiin dad qaali iyaguna labadii xisbi qaran madaxdoodii iyo ra'iisul baarlamaankii runtii waxa weeyaan si fiican bay u dhacday waxaan rajaynaynaa bari haddii alla soo gabagaboobo guliyo gobonimaan dadka reer Soomaaliya meel kasta joogaan u rajaynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ahay gudoomiyaha jaaliyadda Turkish Somaliland Community waxaan ka soo qaybnay shirkan Somaliland Society Europe oo ah shir aad u qiimo badan oo jaaliyadoo dhan isugu yimaadeen ay ka soo qayb galeen madaxda xisbiyada qaranka gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland dad fara badan oo sharaf leh Professor Axmed Ismaaciil Samatar run ahaantii wuxuu ahaa kulan aad u qiimo badan waxaan rajaynayaa inay tahay mid ka fiican la diyaariyo mustaqbalka insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa weeye Mawlid Ciise Dable waxaan ka yimid wadanka Faransiiska waxaan ahay gudoomiyaha jaaliyadda Faransiiska ee Somaliland waxaan ka soo qayb galay maanta shirkii sanadlaha ahaa ee ka dhici jiray maaragtay SSC-da jaaliyadaha Yurub oo lagu qabtay wadankan Finland marka maanta oo ay tahay taariikhdu bishii afraad 25keeda oo Jimcaha waxaa noo dhammaaday qaybtii hore ee maanta shirka oo waqtigan oo imika ay tahay saacad waqtigii aanu ka soo baxnay waxaanu noogu dhammaaday runtii si aad iyo aad u qiimo badan oo u sarreysa oo jaaliyadihii iyo dadkii lagu soo marti qaaday ee ajnabiga ahaa ay si wanaagsan uga qayb galeen marka waxaan rajaynaynaa inuu sidaa iyo si ka fiican beritana uu noo socon doonaa qaybtii labaad markaa shirku beritu dhammaan doonaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dadka reer Somaliland ee ka kala yimid Yurubta oo ay maaragtay ku kala maqan yihiin dadku iyo Afrika xitaa dad baa ka soo maaragtay ka yimid oo si ay uga soo qayb galaan shirkan marka runtii waa farxad iyo maaragtay arag iyo wada tashi iyo su'aal isweydiin iyo sidii looga hadlayay ma garanaysaa qadiyadda Somaliland sidii adduunka loo gaarsiin lahaa loo arki lahaa xaqiiqada ayaa waxa weeye ajendayaasha ka mid ah oo had iyo jeer sanad walba lagu qabtaa bismillahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa Cabdirasaaq Axmed Ibraahim Cabdirasaaq Afqaraf oo ku magac dheer oo ah maxay ahayd gudoomiyaha ictiraaf raadinta ee Scandinavian-ka
oo degan magaalada Copenhagen maantana waxaan runtii farxad ii ah inaan ka soo qayb galo xafladan weyn ee isku yimaadeen jaaliyadaha maxay bahda ay ku bahoobeen jaaliyadaha Somaliland Society Europe oo maanta aad aragtid inay aan isugu nimi maxay caasimadda dalka Finland ee Helsinki oo maanta runtii aanu ku shirayno laba cisho shir socon doona maxay hoteelkan caanka ah ee maxay Hilton maxay Helsinki oo nala ogolaadeen inaan calankayga Somaliland oo maanta halkaas maxay aad aragtid inuu maxay kawr widho oo aad aragtid iyadoo ay hawaduna aad iyo aad maxay noo raali gelisay waxa kale oo maanta ka soo qayb galay dad fara badan oo aad u caana oo ay ka mid yihiin maxay European Parliament maxay Finland ugu jira waxa meesha marayo kala xisbiye ka socday iyaguna maxay baarlamaanka maxay Finland waxa kale oo marti ka qayb galay oo maanta shirkan kala qayb galay maxay laba rugcadaay oo ka kala mid ah gudoomiyaha xisbiga UCID iyo gudoomiyaha maxay baarlamaanka ahna gudoomiyaha maxay xisbiga wadani runtii waxa meesha marayo professor maxay oo ka mid yahay Axmed Ismaaciil Samatar waxa marayo jaamac Muuse Jaamac waxa marayo aqoon-yahano aad u fara badan waxaan iskaga kala nimid dhammaan daafadaha adduunka meel kasto ay tahayba waxa maanta farxad ii ah runtii inaan Somaliland maanta ay cageed ku istaagtay 22 sanadood maxay ahayd halkan maanta la marayaana ay tahay guushaasina ay tahay ilaahay oo maxay xaqiisa ay ka timi iyo maxay karti fara badan oo reer Somaliland ay qabsadeen aad baan maanta ugu faraxsanahay Finland in maanta hawada fiican iyo maxay aan uga faa'iideysano oo ay jooguna maanta runtii aad noo raali geliyay waxaan rajeynayaa dhammaan reer Somaliland meel kasta ay joogaan in la isku duubnaado oo wax la wada qabsado oo maxay ahaydeen la istoosiyo oo ay noqoto maxay ahaydeen xukuumaduna kolba tii fariinta loo diraayo maalinta ay wadanka ay joogto loo sheego halkii ay ka qalloocdo iyo halkii tusaale u baahan hagaag waxaan filayaa shirkaas inaad ka bogateen waxaana uu ka dhacay hoteelka caalamiga ah ee magaalada Helsinki ku yaala ee Hilton markaana ku soo dhawaada xaflad jaaliyadda Somaliland ee dalkan Finland ay u soo qaban qaabisay isla markaana ku sharfaysay gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro iyo professor Axmed Ismaaciil Samatar xafladiina waxa ay u dhacday sida tan alxamdulilah ilaahay baa mahad leh isku keenay waxa kale oo aan u mahad celinayaa xubnaha jaaliyadda Somaliland ee dhammaantood ka soo qayb galay munaasabadan ee waqtigoodii siiyay waxaan kale oo u mahadnaqayaa gudoomiyaha golaha baarlamaanka Cabdiraxmaan Cabdilaahi iyo professorka Axmed Ismaaciil Samatar iyo Cabdiraxmaan Cabdilaahi oo inagala jooga SSC-da marka waxaan idin leeyahay dhammaan xubnaha jaaliyadda waad mahadsantihiin halka waxaan inoo joogaa laba nin oo odayaala oo gudoomiyahani baarlamaanka ahna gudoomiyaha urur siyaasadeedka wadani macallin sare oo aqoontiisa isagana aynu u baahanahay baa meesha jooga oo insha Allah hadalka badiisa aynu dhaafi doono kaliya waxaan rabaa inaan soo gaarsiiyo salaan aan idinka wado jaaliyadaha reer Somaliland ee Europe wad ka war haysaan kulligood nala joogteen in badan oo idinkayda kamid ah kulankii aanu ilaa khamiistii jimcihii iyo sabtida oo shalay ahayd aanu ku lahayn magaalada Helsinki ilaahay noo fidiyo kulanka iyo isu imaatinkan maanta aynu halkan ku leenahay ayaa mahad leh dhanka kale waxaa khudbada dhaadheer ka soo jeediyay kulanka gudoomiyaha baarlamaanka mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo professor Axmed Ismaaciil Samatar iyagoo labadooduba ku dheeraaday waayaha iyo taariikhaha kala duwan ee Somaliland hadaladoodiina waxaa ka mid ahaa guud ahaan dee innaga isku cusbino kulli wejigeenu aad isugu badbadan yahay waddankiina in muddo baan ka soo maqnaa hadda oo 2 bilood ku dhow laakiin guud ahaan Somaliland waxa ilaahay ugu mahadnaqaynaa inay tahay waddan nabadeed oo nabad ka jirto oo horumar ka jiro marka qaarkood waa laga yaabaa deenad maqashaan dhacdooyin dhacay ama khilaaf yar laakiin dhaqanka Somaliland bay ka mid tahay in wax kasta oo soo baxa lagu dhameeyo isafgarad marka guud ahaan waddanku wax dhibaato aan kaga imi ma jirin waxa la filayaa waddanku in horumarkiisa ka sokow in doorashooyin ay qabsoomaan 2015 waxa ka warhaysaan in guddiga doorashooyinka qaranku ay ku dhawaaqeen in la qabanayo diiwaangelintii codbixiyayaasha doorashada diiwaangelinta kadibna waxaa rajaynayaa in doorashadii ay qabsoomi doonto haddii ilaahay ka dhigo Somaliland doorashooyinka qabsoomay tani waa tii 6aad aynu qabanay
waxyaabaha lagu qiimeynayo Somaliland waxa ka mid ah doorashooyinku inay qabsoomeen waxa ka mid ah in si nabadgelyo u qabsoomeen waxa ka mid ah in goobjoogayaal caalami ay joogeen oo warbixinteena qura aan ahayn laakiin warbixin caalami ah mar walba laga qorayay tii ugu dambeysay waxoogaa dhibaatooyin way jireen oo waa ka warqabteen waxaana ugu wacnaa inta badan sida la tuhmayo iyadoo aanay jirin diiwaangelinta codbixiyayaashu marka taasi si looga digtoonaado aanay dib ugu dhicin waxa la rajaynayaa in diiwaangelintaasina mid tii hore ka qurux badan ay noqoto berigii hore fara la iska qaadayo faraha dad badan wax laga yaabaa inay saarin markii la saarayay laakiin tan waa teknolojiya ka sarreysa lagu samayn doonaa insha Allah si rajaynayo la qorsheeyay oo dadka in indhaha laga sawiro oo faraha laga sawirin aan maleeyahay mala halkan oo technology sarre oo wax laga yaabaa in laftigiinu yani Finland ba wali gaadhin baa laga yaabaa teknolojiyadaas laakiin markii la dirsay si loo yareeyo khaladaadka fara badan shirkad Mareykanka la kareeyay oo qolada deeq-bixiyaashu kareeyeen markii daraasaad badan sameeyeen waxa uu soo baxay nidaamka mala ay Soomaalidana eegeen arinteeda guud ahaan iyo sida wax loogu noqnoqdo iyo waxa soo dhan si loo baajiyo waxaan rajaynaynaa in diiwaangelin wanaagsan inoo dhacdo doorasho wanaagsan inoo dhacdo waxaan kullayba ku talinayaa waxa weeye gudaha Somalilandna dadku waa midaysan yahay waa laga yaabaa markay axsaab noqoto axsaabta waa lagu kala qaybsanaanaya oo muwaadinka dastuurka iyo xeerkaas siinaya sharcigaas siinaya saddex xisbi qaran ku isoo ku qanco inuu galo halkan laftigeedana jaaliyadu inay xisbiyada ku qaybsanto wax dhibi kuma jiro saddexdaba wax xisbi qaran weeye haddaad kulmiye gashay iyo haddaad wadani gashay iyo haddaad ucud gasho inkastoo aan ugu jecelahay wadani wada gashaan laakiin saddexda way fiican yihiin saddexda xisbi kii aad gashaa waxay leedahay waxtarkaaga iyo ra'yigaaga inaad ka dhiibato sidii loo hagaajin lahaa xisbiga sidii waddanka loo hagaajinayo dadkuna way iswada jecel yihiin oo isma necba axsaabtu isma necba siyaasiyiintu isma necba laakiin waa la tartamaya kuraasida lagu fadhiya la isku haystaa kayga waa lagu haystaa ana qaar kale ku haystaa laga yaabo cid kale marka laakiin wax dhibi ma jiro waa tartan marka waa tartan caafimaad qaba laakiin marka meesha dagaal ma jiro wala tartamaya si dimuqraadiya loo tartamaya kay araacisaana idinku xaq baa u leediin waxa la doonayaa in Soomaalilandnimada ku midnaysnaataan in jaaliyada ku midnaysnaataan in dhamaantiin xubna ka noqotaan siyaasa waddanka wax ugu taraysa anaga noogu taraysan haddii la ka dhigo dardaaranka inta badan waxaan u maleeyaa professorka aad u xiisaynaysan oo isaga uga tagay haddii la ka dhigo doorkan waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anu waxaan doonayaa laba amuurood inaan idinkala hadlo iyagoo aad u soo gaaban oo Somaliland khuseeyo waxaan isku nimid ay isku keenay waxa weeye waddanka iyo dadka iyo taariikhda aynu wadaagnay Somaliland mid waxa weeye Somaliland gudaheeda waddanka gudihiisa daaqili internal affairs midna waxa weeye Somaliland dibadda international affairs oo meel kaga jirtaan labadaba laakiin international dhulkana degan dabeetana inaan halkaa ku soo gabagabeeyo waddanka gudihiisa wax badan baa waddanka laga qabtay Cabdiraxmaan hadii waqti la siiyay in badan buu inoo dhigdhigi karaa aniga isaga iyaga aqoon badan laakiin inta anigu aan ka darsay amba dibadda aan ku jooga aan ka darsayay amba waddanka tagidiisa aan soo arkay wax badan oo lagu faano ayaa waddanka yaal iyadoon adduunyo waxba nafla aanay gelin iyadoo oo adduunyada hareerahayga ay wada burbursan tahay iyadoo dagaal laga soo noqday iyo dictatorship la iska celinayay laga soo noqday haddana waxaa soo dhan iyadoo la dhaxlay
ayaa haddana waxaad arkaysaa wax lagu faano oo haddii la sii waraabiyo noqonaya sad weyn noqonaya. maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah aan isku daya Mareykankii markaan sheekaysanna inaan ku drill baa la yiraahdaa Ingiriisiga. Drill waa waxay markaad musbaarka meel gelinayso sidaa to drill this into them, ka dhaadhiciso oon ahayn news yar ay tamo laba xabadooda, laakiin aad u macnayso waxay tahay gunteedu ilaa intay dheer tahay. waxaa ka mid ah nabadgelyo saddexe. I remember Hargeysa iyadoo la wada hurdo dheerka Mansuur intaan ka soo baxoon qof anba laba soo ka haysto 11 12 kowda habeenimo magaalada iska soo marmarno soo wareego. magaalada Xamar anigoo jooga 2012 oo candidate hotelka kamaan bixi kareen iyadoo ila socon 12 askari ana ila socon. kharashka ugu weyn ee campaign-ka iyagana haystana wuxuu ahaa sida aniga la ilaalinayo security. halkana magaalada inta laga Hargeyso imika ay ku dhowdahay close to 1 million people ay ku dhowdahay. saq dhaxaan marinay kana iska soconna nothing. qof reer Soomaaliland anigu ma arag ilaa loo yacdo ilaa Ergaabo intaan dhex maray 28 cisho wadadaan ku jirnay oo la maraya suuqa amba meelaha dadku isku yimaadaan public space bastoolad amba qori private ma aragana. waxa guryaha yaala demoogi lagu qarsanayo laakiin dibadda public space dad sita qoriyo ma arag. Xamar airport-ka markaan ka soo degayna sheegii ugu horeeyay wuxuu ahaa aniga hebel baa la yiraahdaa dadka caynkaas aan ka wakiilahay waxaan ku haynaa private security at Kraysato waana la wada sitaa qori. That's an important difference. marka nabadgelyo ballaaran baa jirta oo dhab ah aan ahayn tu iska yeelay aan ahayn dhab ah. waxaa jirta raad dawladeed oo meel walba aad ku arkayso. magaalo waxaan tagay daabiyada yaryar wadada markaan marinay galbeed iyo bariba oo Hargeysa u jira 50 mayl 100 mayl 200 mayl u jira oo 200 iyo 300 qof iyo waxaas ay ku nool yihiin dad iska faqiir ah oo iska masaakiina qaarkood waligood aan Hargeysa arag oo ku tusaya rasiidkii ay ku bixiyeen cashuurtii kal hore ku tusaya. waan soo arkay cashuur bixinta iyo rasiidka haysashadiisuna waxay markhaati u tahay raad dawladeed meesha inuu yaalo. waxaan soo arkay askarigii bilayska ahaa wax ilaalinayay. waxaan soo arkay macallinkii halkaa joogay. waxaan soo arkay clinic daweeyar meel yar oo laga qaato ayaan soo arkay. on raad dawladeed structure of government ayaan soo arkay. waxaan soo arkay oo guulaha ka mid ah dad maskaxdoodu iyo afkoodu ay furanta. anigu 12 lecture baan jeediyay markii hore aan tagay ana wadanka 20 sanadood ka badan ka maqnaa. waxaan doonaan ku hadlay waxaan doono ayaan ku hadlay. inaad adigu dad la hadlayso sharaf kaale inaad afkaaga iyo edabtaada la timaado waa halkeega, laakiin cid igu tidii waxaa kama hadli kartid oo censorship igu samayso waxaa kama hadli kartid amba waxaa iska ilaali ma jirto. jaamacadda la yidhaaho Golis hadda January intaana soo noqon oo ilaa 800 qof ay meesha fadhiyaan oo badnaadaan dhalinyaradii. topic-aanu habeenkaa ka hadlaynay 4 saacadood aanu iskaraacina waxay ahayd ma la isku hayn karaa qabiil iyo qaran ma la isku hayn karaa ayuu lecture-ku ahaa oo aan soo dhaadhicinay ma la isku hayn karaa oo furfurnay oo meel walba farta gelinay marka waxa madax banaani iyo afka banaan iyo hadalka banaan democracy-ga caynkaasi iyo freedom expression caynkaasi waan soo arkay. I used it ana isticmaalay
ama jaamacad ka hadal amba la hadal NGOs ka dadka la shaqeeya ururka ay leeyihiin haweenku oo dad mutacalimiin oo waaweyn ay ku jiraan aanu casho weyn wada yeelanay oo doob wada doodnay waa soo arag iyo jaraa'idka dee hadlaya har iyo habeen oo qaarkood waxay ku hadlayaan ay yihiin fantasy de wax ay habeenkii ku riyoodaan subaxii war ay ka dhigaan soo namadka laakiin madax bannaan waxaa waxay ka mid tahay madax bannaanida iyo afbannaanida laakiin dee jaraa'idka iyo dadka warka duuba ee warka qaada hadday dhab yihiin waxay leeyihiin dee xad buu leeyahay haddaad xadkaa ka tallowdo maraykan haddaad xadkaa ka tallowdo qawaaniin baa maraykan u taalloo la yidhaaho libel law haddaad sheegto amba qof aad meel kaga dhacdo qanuunku qabanaya ayaa jira marka waxaan soo arkay af sidaa u bannaan haddaanay taasu jirinna mabaan tageen maxaan ka doonaya hargeysa tagoo afkaagana xidh what's the point maxaad ka doonaya markaa halkaa tagoo waa hargeysa tagoo soo ego laakiin cabudhnow dee ma soconaysa dee waxyaabaha ay geeyey bay ka mid tahay waana soo arkay waan soo dhandhamiyey waan isticmaalay taana waan soo arkay waa khayr weyn weeye bini aadamku wuxuu ku noqdaa qofku qiimihiisu ku koraa marka ay maskaxdiisa iyo afkiisu xor tahay qofkuna uu garanayo edabta iyo xuduudka dee aad garanayso adiguna ilaa wax walba xuduud bay leeyihin taana waan soo arkay wax badan baan soo arkay dimuqraadinimo doorashooyin la galay iyo tartan siyaasadeed oo distooreysan oo baarlimanku aabbo uga yahay waan soo arkay arrimo badan oo caynkaas dee ma wada sheegi karo waan soo arkay gudaha laakiin gudihii dhibaatooyinna way joogaan dhibaatooyinna way jiraan intaana dhibaatooyinka iyagana dhowr magacaabin waxaa kaloon soo arkay and this is very important waddanka dadka ku nool somaliland ugu yaraan 70% waa dadka da-doodu ay 30 jir ka yar tahay ya 30 years and younger 70% inta aan jaamacadaha ku soo arkay kumayaal adee ilaa Cerigabo ilaa Boorama and in between waxaan soo arkay dad fahmadooda iyo ambitionkooga adiyaabayso anu markii dambe waan caashaq oo madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirada iyo odayaasha iyo haweenka waaweyn iyo iyaga markii dambe waan ka baxsan jiray waayo halka sheekadu ay ku jirtaa waxa weeye dhalinyarta jaamacadaha jooga ragii dumar iskugu jira oo su'aalaha ay ku weydiinayaan iyo halkan xishood iyo waxba su'aalaha ay ku weydiinayaan sida leebka way ganan yihiin laakiin haddana edabtii la socoto it was really fantastic to see this marka dhalinyarada caynkaas sida loogu dhisayo mustaqbal ya waa important waan soo arkay taana enormous intelligence adiyabis fahmada adiyabis iyo gaajada aqoon ay u qabaan laakiin gudihii waxa yaala qooman baa yaala hadii aan qoomankaasi wanaagsan wax looga qaban inta dibadda joogtay inta wadanka gudaha joogtay haddaan wax laga qaban qoomankaas boogay noqonayaan boogtuna waad garanaysaa dee waxay keento waad garanaysaa maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah shaqo la'aan dhalinyaradii shaqo la'aan marka laga hadlayo 70% shaqo aanay jirin jaamacadana laga soo baxay high schoolkii laga soo baxay iskuuladii dugsiyadii dhexe laga soo baxay da'daasa oo mustaqbalku ku leeyahay 50 sanadood haddaad nooshahay dee waa gidaarka hay bay noqonaysaa waxa weeye waa garnayl sugaya inuu qarxo shaqo la'aantu joblessness even halkan ay Mareykan bay ka dhici kartaa iska daalkaas 70% ay shaqo leeyihiin wadan 70% 30 jir ay ka yar yihiin labada markaad isku darto it's very explosive taana waan soo arkay in wax laga qabto waxaan soo arkay oo dhibaatooyinka gudaha yaala kamid ah infrastructure-ka wadanka ya
hargeysa qura ayaanad ka baxayn dhibaatadeeda wadooyinkeeda ya wadooyinka hargeysa magaalada intaa leeg dhibaato ah wadooyinkeeda waan soo arkay iska daana markaad magaalooyinka kale u baxayso waa la wadaayo halkan in booramiya la isku xidhay hargeyso in qaar la dhameeyo intii kale googooday laga shaqaynayo arigaabo wadadeedii waa taa inta bilaabantay that's good laakiin in general terms markaad guud ahaan eegto Somaliland infrastructure-ka wadooyinkooda ya waa kuwa adduunyada ugu xun ee ugu dhib badan soo garmaysa taana waan soo arkay waxaan soo arkay energy ya electriga iyo microphone-kaas wuxuu ku shaqeynaya waa energy electricity ya electricity amba aan jirin meeshay jirtana qaali ah oo de yani adiyaabaysa qaaliga kilowatt-ka qaali siduu yahay wadanaan energy lahayna amba aan energy jirin la isticmaalo oo dadku ay iibsan karaan aanay jirina shaqo lama abuuri karo warshado lama samayn karo librariyaal ma jiri karaan cusbitaaladu si wanaagsan uma shaqaynayaan noloshu way fadhiisanaysaa haddaanu energy jirin electricity waxaan soo arkay biyo nadiifa cabidoodu aad bay u yar tahay inta hargeysa iyo burca iyo berbere iyo ceerigaabo iyo boorami magaalooyinka jooga ee alaabtan qascadaha ku jirta quraaradaha yar ku jirta caaga ah dadku intaa ma aha wax xunbada yar ee sare weeye ya dadkii caadiga ahaa ee reer Somaliland biyo xumi baa haysata amba biyo la'aanba marka waxay cabayaan waxa weeye biyo wasakhaysan biyaha wasakhaysana waa qof cudur cabaya clean water hadaan jiro wadamada soo koraya Somaliland ay kamid tahay tropical countries cudurrada haya haddii dadku ay haystaan biyo nadiif ah oo ay cabaan cudurrada boqolkiiba 5 iyo 60 you eliminate way baaba'ayaan haddaad biyo nadiif ah cabta haysato in tropical countries tana waan soo arkay markaanu galbeedka maraynay xeebaha maraynay waxa la yiri biyo sii qaada baabuuradii biyaan ku sii qaadnay qasacad ku jira caagaga ku jira kolkaas wadada markaan soconay dad masaakiin oo waxoogaa ari amba geel yar wata inta daqadan uga turinay biyaha dama qofka hargeysa ka yimid amba boorama ka yimid sida 20 xabadood oo biyo yar ku jiraan ma taas naf u noqonayso waxa laga yaabaa marka inuu qofku yara cabo laakiin ma noqonayso sustainable ma noqonayso in haraad ay u dhintaan very easy biyaha arrimaha caynkaas waan soo arkay waxa kale oo soo arkay arrimaha in hor yaala reer Somaliland dibaddana way taala maynaan baran wali si dhabana maynaan baran hawsheediina maynaan gelin qaran iyo qabiil sida loo kala saaro make no mistake about this qaran iyo qabiil sida loo kala saaro maynaan baran wali haddaynaan degdeg u baran sida loo kala saarana way nagu dumiduna waxay keenaysaa xinka xunna wuxuu keenayaa marka dambe in la isxagxagto xagashaduna marka dambe haddaan la qaban waxay ku keenaysaa civil war ayay ku keenaysaa soo degarmi yaan makhadad dheer la qaadanin cudurkaasi wuu yaallaa waddanka maynaan sida loo kala saaro qabiil iyo qaran reer Somaliland may baran in fact waxaan qabaa sheekadeedii xitaa ya ilaa sheekada la isku afkartay xitaa sheekadeedii inaan miiska la soo dhigin oo si looga doodo sideen uga baxnaa aan sheekadeedii la soo dhigin axsaabta speakerku oo ka mid yahay midkood anigu waxaan aaminsanahay intaan dirsan arkay intooda badan tuumba qabiileed baa ku jirta all three of them qabiil tuumbadiisa ku jirta saad garmaysid laguma dhisi karayo qaran over the long term hadday taasu noqoto lafdhabarka siyaasadda waddanka laguma dhisayo way kala daadan gooray kala daadato marka in laga fikiro sida qabiil looga fasax qaadanayo tolnimadu waa halkeega oo dadka ceergaabo ku wada dhashay amba ku wada dhashay burco ku wada dhashay amba ku wada dhashay berbera ku wada dhashay amba ku wada dhashay salaxley de ilaahay baa halkaa ku wada abuuray way isdhaleen waa sidaas waa family waa tolnimo taas laakiin qabiilku waxa weeye rag is urursaday
dumarkana intay ka kaxaysan karaan markay u baahan yihiin ka kaxaysta si ay sacabka ugu tumaan oo ugu mashxaradaan soo aad soo garamaysa dabadeetana ay isku raacaan raggaas abtirsanaya ya isku raacaan si ay inta kale u boobaan amba ay uga adkaadaan laakiin maaha wax la wadaagayo ma noqonayo qabiil marka taasna waan soo arkay reer Somaliland waynu dhaannaa reer Soomaaliya arrinta waynu ku dhaannaa oo maynaan dhisan karnayn dawlad haddaynaan maaragtay progress samayn laakiin waa kadar adag oo ina hor taalla doorashooyinkuna haddii aan laga fasaxayn oo laga fogeyn qabiil haddaan laga fogeyn waxay noqdaan doorashooyinku meeshad kabriidka laga daaro qabiilku inuu gubo wadanka ayay noqoto horena waynu soo aragnay taana waan soo aragnay halka aan kaga hadho arrimihii gudaha way badan yihiin waxa wanaaga iyo dhibaatooyinka hor yaala nolosha adduunyaduna ma dhamaato oo ma jirto adduunyadu waa kadeed iyo shaqo adduunyadu life is hard qofka inaad noolaato waa shaqo adag iska daa wadan yaroo imika soo korayo marka uma jeedo haddaan dhibaatooyinka qaar idin taabtay uma jeedo innaka inagu gooni yihiin nolosha ilaahay bini aadamka adduunyada lagu nool yahay yaa shaqada adaga oo dadka filosofarska qaarkood waxay ku odhanayaan dhimashadu aynu ka oynay inaku maaha wax laga ooyo dhimashadu waxa weeye adiga oo ka nasanaya tacabkii adduunyada ka nasanaya forever you rest from the burdens of life forever inaad ka nastato tacabka adduunyada forever weeye nolosha marka waa naxariis dhimashadu ayay ku odhanayaan professor waxay ka hadlayaan dee waa dhibaatada nolosha adduunka halkaa taan kaga hadha in yaran ka idhaaho arrimaha dibadda international oo diasporahu de ay meel weyn kaga jiraan itana dhowr amuurood baan kusoo gabagabayn dibadda Somaliland midi waxa weeye xiriirka inaga dhaxeeya Soomaaliya wadan waxa la wada lahaan jiray la kala baxay laakiin haddana wax badan la wada leeyahay wali oo derisnimo la wada leeyahay Soomaalinimadii dad waxaanu nahay dhaqankeena waa Somaliland baa la yiraahdaa hadii kala dawaan magac kale u bixino oo nahana some other thing land laakiin Soomaalinimo waynu wadaagnaa diin dad islaam ayaynu wadanahay waxaynu isku diidanahay in waxa weeye ee lagu kala tago waxa weeye sida la isku xukumayo ya qarannimo iyo sida la isku xukumayo soo garmaysa afkan aan ku hadlayo wala wada leeyahay bismillahir rahmanir rahim wala wada leeyahay soo dhamad gar marka waxa weeye xiriirka inaga dhaxeeya Soomaaliya inagu tartan baan ku wada jirnaa Soomaaliya tartan baan ku jirnaa tartankan inaynu fahmno si dhabaynu fahmno waa critical hadinaynu fahmno tartankaasi waxa iyagu doodooda waxa weeye waa walaalahayo oo yara cadhooday kolka way soo noqon doonaan inta ay soo noqonayaana annaga ka sii wakiila adduunyadu annaga ka wakiila way doodoodu markay shaadirka gashan tahay sidaas ay u egtahay laakiin shaadirka markaad ka rogto eed aragto wax kale ku hoos jira waxa kale ku hoos jiraana waxa weeye inayna nuugaantee ilayna nuugo ya oo sida ay hargeysi u noqotay daabiyad yar oo laga guuray ay u noqotay in halka dib loogu noqdo wadana mar kale laga guuray hargeysa iyo burca iyo boorama iyo laga guuro hadana halkii loogu noqdo dhulkeena hadana daabiyada laambada ay wada noqdaan that's the project wax iska bedelayna ma jiro sababta kalmaysa ka tartan baynu ku jirnaa tartankaasi waxa weeye inaynu ka dhabayno inaynu nahay ahaan jirnay dad wadan gooniya leh British Somaliland loo oran jiray Britishka horteed aynu ahayn dad meel wada deganaa oo is yaqaaneen nahay soo garmaysa inaynu markaa ka dhabayno soo celintii awood dawladnimo aynu lahayn inaan ka dhabayno shaqo weyn ayay taasi u baahan tahay welina si dhaba umaynaan bilaabin iska daa maxaan ku idhaahay iyada oo aynu hawsheedii galnay si dhab ah umaynaan bilaabin amba ha noqoto
tartanka lagula jiro Soomaaliya sida loo oranayo dee waaraynu isfasaxna dee si dhab ah aynu isku fasaxna amba ha noqoto sida adduunyada kale looga helayo garasho ah inuu nahay dad iyo ummad gooni u taagan inaan shaqadeedii maynaanka Hargeysana aad baa loogu qayilaa wala qayilaa wadadaan runta la sheegay aad baa loo qayilaa oo markaas faalla iyo wax la galgalaa laakiin next morning shaqo jirta oo socota way yartahay daawadayaal xafladaas waxaan filayaa in aad ka bogateen markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan doorashooyinka baarlamaanka Yurub ee haatan qabanqaabadoodu ay ka socoto guud ahaan dalalka Yurub gaar ahaan dalka Finland iyo waliba waraysi arrintaas la xiriira oo aanu la yeelanay ra'iisul wasaaraha dalka Finland Jyrki Katainen. doorashooyinka baarlamaanka Yurub waxaa laga qaban qaabiyaa guud ahaan dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub ee 28 dal ah 22 ilaa 25 Maajo ee sanad kasta. doorashooyinkan waxaa lagu soo xulanayaa marka la isu geeyo 751 mudanayaal oo baarlamaanka midowga Yurub xubin ka ahaan doona isla markaana xilka aasahayn doona 5 sano ee soo socota. dalalka Holland iyo Ingiriiska doorashadu waxay ka dhacaysaa 22ka bisha shanaad, Jamhuuriyadda Jeegana 23 ilaa 24 bisha shanaad, Latvia, Malta iyo Slovakiana waxay ka dhacaysaa 24 bisha shanaad, Itaaliyana 24 ilaa 25 bisha shanaad. wadamada kale ee xubnaha ka ah midowgana waxay ka dhacaysaa 25 bisha shanaad. dalalka Talyaaniga, Khubrus iyo Griiga da'da ugu yar ee uu musharaxu jiri karo marka uu doonayo inuu isu soo sharaxo xilka xildhibaannimada baarlamaanka midowga Yurub waa 25 sano. Romaniana waa inuu jiraa qofka isu soo sharaxaya 23 sano. Belgiumka, Bulgaria, Jeega, Estonia, Ireland, Latvia, Lithuania, Poland iyo Slovakiana waa inuu 21 sano jiraa. wadamada kale ee xubnaha ka ah midowga Yurubna waa inuu 18 sano jiraa. sanadka 2014 dalka Finland waxaa doorashada baarlamaanka Yurub laga qaban qaabinayaa 25 bisha Maajo ee sanadkan 2014. codaynta horudhaca ah waxaa dalka gudihiisa laga codayn karaa 14 ilaa 25 bisha shanaad inta u dhaxaysa, dibaddana 14 ilaa 17 bisha shanaad ee isla sanadkan 2014. kal hore doorashooyinka baarlamaanka midowga Yurub guud ahaan waxaa la qaban qaabi jiray bisha shanaad, bisha lixaad ee June oo ku aadan xilliga xagaaga ama fasaxyaduna ay badan yihiin. laakiin waqtigaas guud ahaan wadamada xubnaha ka ah midowga Yurub waa laga bedelay 10 xubin uga ahaan doona baarlamaanka Yurub oo ay ka howlgalaan xildhibaano 751 ah oo ku dhawaad 500 oo milyan oo qofood wakiilka ah. 500 milyan oo qofoodna waa dadka lagu qiyaaso inay ku dhaqan yihiin wadamada 28 dal ah ee uu midowga Yurub ka kooban yahay. doorashooyin toos ah ayaa lagu soo doortaa 5 sanaba mar xildhibaanada baarlamaanka Yurub, waxaana doorashooyinkaas ay bilowdeen sanadkii 1979. laga soo bilaabo sanadkii 2014kana doorashooyinka waxaa laga qaban qaabiyaa guud ahaan dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub isku waqti. dowlad kasta waxay iskeed u samaysataa qaabka ay u xulanayso xildhibaanadeeda uga qaybgalaya baarlamaanka Yurub. xarunta baarlamaanku waxay ku taalaa Strasbourg ee dalka Faransiiska, halkaas oo 12 jeer sanad kasta kooran buuxa oo 4 maalmood socda ay xildhibaanadu ku qaataan ama ay kula kulmaan. fadhiga baarlamaanka ay dhammaystiranna waxaa looga baaraandegaa mooshinada xeerdijineed ee dhinaca komishinka ka soo gaara xildhibaanada ama baarlamaanka. kadibna go'aan ayuu baarlamaanku ka gaaraa arrimahaas dhinaca komishinka uga yimaada. mushaarka ay haatan qaataan xildhibaanada baarlamaanka Yurub ku jira waa qiyaastii 7,600 oo euro, waxaana laga jaraa ama laga gooyaa canshuur wadaag ah. doorashooyinka baarlamaanka Yurub ee laga qaban qaabiyo Finland waxaa codayntiisa xaq u leh ama ka codayn kara dhammaan muwaadiniinta Finishka ee 18 sano buuxiyay ugu dambeyn maalinta doorashadu ay dhacayso. ra'iisul wasaaraha dalka Finland ana gudoomiyaha xisbiga Kokoomus Jyrki Katainen ayaanu kula kulanay madal ay isugu yimaadeen taageerayaasha iyo waliba
xubnaha xisbiga kokomuska madashaas oo uu ra-iisul wasaaruhu kaga dhawaaqayay in xisbigiisu ay haatan u diyaargaroobeen islamarkaana bilaabayaan ololaha doorashooyinka baarlamaanka midowda yurub ra-iisul wasaaraha oo aanu dhowr su-aalood weydiinana waxa uu jawaabtiisii amba waraysigii uu u dhacay sida tan somaliankielisielle yhteisölle eli mistä on kyse kun puhutaan niin eurovaaleista koska paljon onhan muuten taustaisia varsinkin somaliankielisiä eli joilla on oikeus että osallistua tähän eli äänestykseen niin mutta eivät tiedäkään. Joo, eli eurovaaleissa valitaan kansanedustajia, jotka rakentavat parempaa Eurooppaa. Siihen sisältyy ihmisten vapauksien lisääntyminen, talouskasvun luominen ja turvallisuuden lisääminen. Ja se on kovaa arkista työtä ja niihin asioihin pitää osata ottaa kantaa ja sitten täytyy uskaltaa sitoutua. Kokoomukselle kansainvälinen vaikuttaminen ja kansainvälinen politiikka on ollut aina erittäin tärkeää. Ehkä siitä jotakin kertoo se, että meillä on jopa 2 ministeriä ehdokkaana tällä kertaa. Eli he haluavat aidosti vaikuttajaksi Eurooppaan. Mä toivotan somaliyhteisölle hyvää kevättä ja mä toivon, että käykää äänestämässä. Jos haluatte avoimuuden, suvaitsevaisuuden, vapauksien, talouskasvun ja vakauden puolesta työtä tekeviä ihmisiä, niin kokoomuksen listalta niitä löytyy. Kiitos paljon. Kiitos.
wanaagsanowa samowa samow samowa samow susubanowa samow sarar iyo lagowa sagahan markii uu isku diyaariyey in uu geedkii gurto oo uu geedkii fuulay ayaa waxaa u yimid ninkii geedkii shinnida ku diyaarsaday wuxuuna su'aalay warniyahow adeera wanaagsanowa tihiyo totoosanowa carruurey beri waxaa jiri jiray nin beenaalo ah oo tuugna ah ninkaas maalin maalmaha ka mid a ayuu wuxuu arkay geed ay shinni ku diyaarsatay malab ninkii beenaalaha ahaa tuugana ahaa wuxuu isku dayay inuu shinnida malabka diyaarsatay uu qaato iyadoo dad kale ay lahaayeen wuu fiiriyey geedkii wuxuuna ku fekeray sida uu ku qaadan lahaa wuxuu soo qaatay basaar iyo qori dab ah iyo caws markii uu isku diyaariyey in uu geedkii gurto oo uu geedkii fuulay ayaa waxaa u yimid ninkii geedkii shinnida ku diyaarsaday wuxuuna su'aalay warniyahow maxaad ka haysaa geedka dushiisa tuugii beenaalaha ahaa wuxuu ku jawaabay waxaan rabaa inaan geedka dushiisa ku leyrsado oo maxaad masaarta u sidataa ayuu haddana su'aalay tuugii beenaalaha ah wuxuu ku jawaabay masaarta waxaan rabaa inaan ku jarto laamaha geedka iskaga jaro ninkii haddana wuxuu su'aalay maxaad u sidataa cawska tuugii beenaalaha ah wuxuu ku jawaabay cawskan waxaan rabaa inaan ku fariisto si dharka uusan iiga wasaqoobin ninkii wuxuu haddana su'aalay qoriga dab kale maxaad u sidataa tuugii beenaalaha ah wuxuu ku jawaabay taasi jawaab uma hayo